ninka uu diiday marka nimanka ku celinaya wuxuu leeyahay maxaa ninkaas hala soo xiro macnaha hala ka tiinadeeyo war ninkaas adigu way doodeen way iga fogyiin macnaha doodooda macnaha qaabka u dhaqmaya oo isku celinayaan baasha ninkii uu diiday nimanka baasha ku celiyay laba wiila ay timid waxay dhahan walaalow naga raali noqo annaga amarku waa naga sareeyaa waxaa la yiri ninkaas qolkiisa hal la galiyo mugdiga ku jiro labada lugoodna laga xiro labada lugood hadda markaan kaco aan ku tusi doonaa waa duubi doontaa wallahi ma socon kari mana kici kari macnaha markaan kacayo waxay noqonaysaa inaan kuwana ay bararay hadda indian aaday waa in soo daaweeyey marka lugii laga xiray waa katiinadii miya katiinadii marka anisoo telefoon reerkayga iguma dhiibin lama hadlin maalmo ka horna soo nin lacag $200 ma siinin oo telefoon lama hadlin macnaha reerkaygii baa mar walba information laga soo helayaa inaan la soo wali waxaan ku yiri mar walba hooyo telefoon helo wiilasha meesha lacag baan siiya markaan la soo laba waxaan u soo diray u soo dira hooyaday waa iska waayeel ninkan marka saaxiibkay muusan fiirnin hooyaday waayeelnimadeeda waxa weeye muusan fiirnin ilmaha meesha ii jooga agoonta muusan fiirnin reerkaygu wixii Abdullahi xaaladiisa ma ogaateen xogtiisa badi waran aniga meel aan ka reeb markaas waxay leeyihiin saaku nala soo hadlayo telefoon buu helayo nin buu helayo $200 u dirnay ala numberku idinka soo wacay ma ii sheegi kartaan aan ka wacee ha qoro numberka Cabdiraxmaan dheer loo diraya ninkii waa saaxiibka ninkii waa saaxiibkii anigu waa xiranahay hooyana way taqaanaa hooyadeena way taqaanaa marka xarigan markii la iyadana si arxanimo ugu sheegaysaa iyadana waxay isleedahay mar walbana wuxuu ku dhahaa hawshiisa waan ku jirnaa odayaal baan diyaariyay hawshiisa waan ku jirnaa waay hawshiisi waan ku jirnaa macnaha waa la xiray markii la xiray yaan waxaan dareemay xogta rasmigaba in reerkayga dad ku xiran yahay ay jiraan waxaan go'aansay dib dambe inaan telefoon ugu dirin reerkayga si bal horta aan u nabad helo aniga isbuucan xirnaa salaad marka nin saa loo xiray waa inaad si isku gadisaa si labadan lugood laga xiray marka anooba godka jilco ku jira haddana qolka u kulul ku jira labadan lugood laga xiray markii labadan lugood laga xiray that means waxa weeye ninka hal ciqaabo suusan mar dambe wax u sameeyeen lugihii way yara burburnaayeen meeshan waxa marka biinadina waxay yiri waliba yarka uu naxariistay wuxuu yiri walaal waan ka xumay anigu kuma xirayo igu yiri arigiisa waan xasuustaa wuxuu yiri kuma xirayo adiga gacantaada isku xir biinadii markaan isku keenay ilga u koobaad un bay isqabatay hal mar uma dhag ka sii kii labaad kii saddexaad isgeysay wayna igu dhoojinsatay waxaan eri walaalo waa igu yara dhoojinsatay saan ilga kore uga xiriga koobaad uga xiro furaaysi wallahi inaan fura la ii soo dhiibin buu yiri ayadoo kala furana la ii keenay waxaan la yiri ninka lagu soo xiro furaha cid hayso wallahi inaan ogeyn buu yiri ilaahay baa gacanta isku xiro kee ha ilaahay baa marka waxaan ku yiri ilaahay baan u joogaa dhimana marka waan isku yara adkeey marka way waxa dhiigi baa kala xirmay waxay bilaabatay isbuucan ku xirnaa luway waan ku tusay hadhow markaan ka caawin warqadaha Max Hospital baan tagay India warqadihii aan India ka soo qaatay waan ku tusi waa la iduray lugahan waa la iga duray macnaha waxa la yiri way kala xirmeen nerve system-ka kala xirmay waxaasne waxa keenay macnaha birti la igu xiray imisa ugu xirnay birta 7 bari igu xirnay marka reerkayga marka muruqi lugta go'ay lugihii way kala xirmay way kala go'een hadda waan ku tusi doonaa hadhow lugtan koraan waa kaas doonaa meeshan barra ku jira seedanna way bararsan tahay marka lugihii baa kala xirmay hadda markaan kacayo reality waxa weeye yaa Allah ku kacayaa daawooyinkan isticmaalana bulshada waa loo soo bandhigi karaa macnaha nimankaas ciqaab adoo lugaaga ku socdo xayaad gashay meeshaas anoo lugay ku socdo oo xayaan galay waay katiinada lagu xiray qolka lagu celiyay waay marka waqti dheer ay ahayd yaa kugu soo boqday marka xabsiga qof walbo isku day inuu soo aado dad baa isku day inay soo aadaan waxa lagu yiri ninkaas magaciisa ma hayno saa kuma jirtid oobiga ilaa oobiga subaxii waa la gudbiyaa waa loo gudbiyaa marka oobiga kuma jiri marka waxa la naga raalaada ninkaas magaciisa ma hayno dad xataa qaraabadeyda isku day inay waa lagu katiinadeeyay marka waxdii waday dhibaatadii ka soo gaartay katiinada goorma ogaatay inaad naafa tahay horta waxa weeyaan markii katiinada really
ayadoo katiinada igu xiran tahay dooberi markay igu xiran tahay maalin waxaan dhacday musqusha inaan soo aado ayaan loo musqusha markaan soo aaday runtii waxa weeyaan oon ka soo baxay yaa miir iigu dambeysay sababtoo ah nerve systemka ay kala xirmay miir markay igu dambeysay waan dhacay kolley markii aan soo daaweeyey kadib nimankii meesha joogay waxay dhaheen oo weliba rag shabaabka meesha ku xirnaa waxay dhaheen nimankan inay garab ku siiyaan waa diideen inaa xanuunsan tahay xataa waxay dhaheen nimankii iska heleelayaa inay ku qaadaan weydiin mar dambe oo dhakhtar habar khadiija laga keenay oo ciidanka haramacda yaa ku baaray oo arkay qalab buu soo qaatay baashi dhiigga lagu cabirayay wuxuu yidhi ninkan waxa weeyaan arrintiisu waa serious markaasay isbitaal ay geeyeen inta ka horeyso waa almost waxa weeyaan 12 saacadood aan meesha dhexdeeda dhex yaallay oo aysan cid uu ii soo dhaqday aysan jirin isbitaalkee lagu geeyey marka hore isbitaalka ummaa la geeyey isbitaalka hooyooyinka kadib irbad waxaa la iduray aad ii dhibtay jirka dhan waxaa weeyaan waan kulaaday irbad aan danoon la ibaarin baa waxaa la igu duray irbadda naqaska igu dhagay markuu iga tambadnayd irbadda inta badan waxaan u malaynayaa irbad la isku raacin jiray biyaha faleembada la isku siin jiray yaa si toosa la igu duray jirka dhan yaa kuleel baan dareemay marka aniga dhan baan waxaan noqday nin nooc kale ah marka weliba hadalkan ku dhawaaqay wuxuu ahaa warmaad i sumayseen aniga waxaan u malaysun in laygu duray sababtoo niman qaabka ila dhaqmayeen dhimashaa ii dhaantay ma kuwa isbitaalka jooga saas kula dhaqmaysa macnaha irbad waxaa la iduray aanan ka waaqsan karin macnaha awooddeeda iyo xanuunkeeda marka markiiba isbitaalka waa laga bedelay waxay ila carreen marka xaaladdeeda serious ay noqotay waxay ila carreen isbitaalkan la yidhaahdo Yardameeri marka isbitaal ay isticmaalaan miya iyaga caadiyan ka isticmaalaan weeye laakiin xanuunkayga muusan garanaynin haddii nin aan baaritaan lagu sameynno irbad la iskaga durayo macna ma keenayso markii Yardameeri baa la igeeyey Yardameeri markii la igeeyey dhakhtarkii baa la igeeyey dhakhtarkii markuu soo baaray wuxuu yiri ninkan maxaad u haysateen intan la eg oo dhakhtarku wuxuu ku yiri ninka hadduu dil toogasho ku xukuman yahay ninka ma dishaan haddii uu siideyn uu ilaahay u qorayna ninkan wuxuu yiri hadda wuxuu u baahan yahay buu yiri inuu muddo inta uu joogo isbitaalka la seexiyo 2 days 3 days wuxuu ku arkay marka dhakhtarku wuxuu igu arkay wuxuu yiri ninkan horta dhiikar baa iyaa ku soo wajahan dhiiggiisa waa zaa'id uu yiri inuu madaxa ugu shubmane waa macquul gal tan kale wuxuu yiri ninkan dhiiggiisa waa kala xirmay qaybtan dambe oo dhan ma dareemayo uu qanjuruftay wuxuu yiri marka waxaan ku xiran maxaa haya ninkan uu saa u galay marka waxay ku dhaheen marka ninkan nin dad laayay way uu isqarxiyay al-shabaab uu saa u galay oo adigu warbixin bay u sheegeen marka ay dhaafiyay ku yiraan ma daaweynaynin sidaas marka dambe waxay ku dhaheen daawe marka wuxuu yiri isbitaalka waa inuu seexdaa waxay dhaheen anagu isbitaal awood uma lihin inaan isbitaalka ninkan uu seexdo saa darteed hala beero daawooyinka hala siiyo meesha marka waxaa dhacday daawooyinkii marka dhakhtarkii lacagta uu soo qoray in la isku qabsaday in la yiri qoladii soo qaaday yar Xuseen la yiraahdo iyo yar Khalid la yiraahdo gacan yaro u ahaa Ibrahim Macalin baa ayaa soo qaaday ku Ibrahim Macalin waa inay ku jawaab celinayaan dhahan lacagta meeshan waa $500 $600 ninka daawooyinkiisa baaritaankiisa wuxuu yiri lacagta ma bixin karno jeebkiisa kama bixin karo talisku wacay taliska markuu wacay markii jawaab lagu soo celiyo waxa la yiri ninka bari aan daaweynaha la soo celiyo la ima daaweyn dhakhtarkii uu yaabay marka wuxuu yiri idinka saa u dhaqmaysaan ninkan dhakhtar wuxuu u baahan yahay degdeg in gargaar degdeg in la caawiyo mayniyo waxba si ah qolada maaliyadda marka waa la celiyay markii la celiyay ilmihii la dhiibay waxa la meesha ku celiyay barteedii baa lagu celiyay xarigiina meeshina iskatiinadina waa lagu xiray kadib markaan muddo meesha ku jiray yaan aad u xanuunsaday marka waxaan bilaabay inaan maaragtay anoo suuxsan hadaa markay damcaan inay soo kiciyaan inay igu imaadaan anigoo suuxsan sankan dhiig ka keenay oo dhiig caadi ah laba habeenay intay bixiyeen bay meel biyo igu geliyeen oo maalmaha ay dhahayeen waa qiro maxaa la yiraahdaa inaad dadka la leynayo sheeg cidda leynaysa Axmed uu sheegtay macnaha dad ku qir sheekada maxay tahay marka ku mikhraati macnaha odayaal lagu laayay Kismaayo oo shabaab ay dileen yaa waxay rabeen ayagu inay si ay isbedel doonkii ayaga iskugu dhacaan odayaasha isbedel doonay waa kuwa meelaha ka hadli jiray oo dhihi jiray Axmed khalad buu wadaa Axmed Sanway nabadoono marka laba kamida midna waxa lagu dilay dalcadda midna meelaha Soomaaliya istaaba lagu dilay marka waxay dhaheen waxaad u sheegtaa dadka in ma aragtay Axmed team uu leeyahay dadka leynayo adigana aad makhraati ka ahayd dadka la sameeyay kadib waan ku sii deynaa waxaan ku yirnaa si walba ii sameeysan anigu lagama yaabo qof dambi leh qof aan dambi aan lahayn inaan dambi dusha ka saarayno yoom qamana la weydiinaya marka maxaad idilaba anigu hadda waaba idisheen waxba iima dhinna
marka waxay sameeyeen lugaha iga xireen barkada biyaha ee meesha matoorka u dhow yaa la ii geliyay intaas markii daqiiqadan ku jira laga soo saaray ma qaranaysa marka in badan ay saas sameeyeen marka dambe waxay ninkan yuusan ugu dhiman naga daaya marka jug baa marka wax xanuunsanaysa isku yeelayaan anoo xanuunsanaysa igaaray jug baa igaartay feeraha ah runtii naqaskaad oxygenka igu dhagay waan tabcaan baan noqday nimankii marka maalin subax waxaa dhacday markaas waxaa ka mid a anoo xabsiga ku jira yaa nin la igu soo ag xiray nin iska yara maskiina ninkii oo qadadka labada lagu soo tuuray meesha qolkayga lagu soo xiray marka waxaan isiri ninkan show nin ay soo dirsadeen waa anu waan iskaga aamusoday nin iska xanuunsan oo naqaska dhibayaan ahaa haddana meel kullaan ku jiray oo really waxaan islahaa ma maantay taada soo galaysaa ma hadday nafta ku daynaysaa saasaan lahaa kuwan dambena warkooda haba sheegin lugahan inay igu yaalaan aniga naftiyga shaki iga jireen marka waxaa dhacday ninkii marka uu iska ooyey salaad uu istaagay ninka waxaan ku niyo maxaa kugu dhacay ninku wuxuu yiri bajaajaan watay bajaaj anoo wato gaari cabdibilaal liigu horgooyey markii liigu horgooyey guri baa laygu xiray laba beriyaan guriga ku jiray labada beriyaan guriga ku jiray waa la garaacay waxaa la yiri niman xamar weyne lagu laayay dembigooda qiro inaad adiga dishay anigana allahi alla meesha iska meel ganacsato meesha laga soo qabtayna waxaa marjajab buu yiri waxay leeyihiin ilmaad dhashay reer baad dhashay in laba ciyaar dhashay waan ku ognahay waxa weeyaan annaga aduu qiro dambiga maxkamad marka lagu geeyo annaga maxkamadda kaaga horeyna maxkamad annaga ku furdaaminayna macnaha nimankan nin ragga dambiilaha la badbaadinaya marka dambi iyagu geysteen waa laga yaabaa waa dambi ayaga ay geysteen laga yaabaa marka qof loo saarinaya ila waxa la rabaa qofkii dawladdu waxa la rabaa dad adduunka shacabka in la qanciyo shacabka maxaa lagu qancini adduunka media jira reerihii dadka laga dilayna su'aal ay la taageen meel waxay leeyihiin anaga xuquuq baan u baahanahay wiilasha waxaan u baahanahay cid dishay wiilkanaga marka dadkaas waxa laga yaabaa nin saa dishay inay ku raatirtaan ay rabaan inay ninkan macnaha waxa la yiri waa lagu qasbay marka soo bajaaj wata la soo qabtay soo bajaaj wata dambiga uu qirtay uu ii sheegay wuxuu yiri markii la dilay tan kale ilmeeygi la soo qabtay ilaa hor keenay reerkeygii labadii ciyaal iyo gabdhahaygii oo horteyda gabadheydii waliba yartay saa intii geelka loo qabtay baan iska ilmeey wuxuu yiri waan qiranayaa waa ilmeyga la fasaxay ilmeyga waa la fasaxay waa kaamira laga qaaday waa la ii labisay buu yiri meel fadhiisay waa la iga duubay anaa dilay shabaab baa soo dirsaday waa dilayna waxaan aragnay intii maxkamad waana lagu hilmaamay meesha inta lagu soo xiray buu yiri cajalada ka duubteen cajalada iga duubteen buu yiri marka waxaan ogaaday nimankan macnaha dambiyada qaarkood ay geystaan laba mid ay u kala qaadaan dambi ayaga ay geystaan oo dad intay dilaan ama ka hor imaaday ay dad shacab u saaranayaan iyo dambi niman shabaab ay geysteen intii la soo xiray nimanka shabaabka ayay u arkeen faa'iido inay nimankan la shaqeyn karaan information ay uga helaan saa darteed nimankan in la badbaadiyo la rabaa wada shaqeynna waa laga sayaxay marka shacabkii in la raadiyo weeye haddana la soo qabto oo dambiga al-shabaab qofka loo saaro waay ninkii marka iyo wad sheekadiisii ninkii wuxuu ku yiri saasaa lagu soo xiray ninkii wuxuu yiri uu dhaartay ilaahayow dhulka caawa idil saan weeyaan maxkamadda haddii la isaaro ma qiran karo carruurteydii waxa weeyaan haddiiba la hor keenay carruurteydii oo la yiri waa la dilayaa aniga waxa way fadhiya ma yaal marka wuxuu yiri inaan dambigan iska qirtay marka waxay caddaatay dad badan oo la dilayo in oo maxkamadda ay ku xukuntay xataa dil oo iska qirtay oo sida dadka meelaha laga waraysto oo dhahanaga geysanay in duruufyo badan ay ku kaliftay Soomaalida waa la baabi'iyay marka waa taa waa comment laakiin waxaan rabaa ninkii marka xabsiga asoo ku jira ka soo baxday asagoo xabsi ku jiro oo cidna aysan u imaan aniga aan ka soo baxay xabsiga waay sidoo soo baxday xabsiga aniga xabsiga waxaan soo baxay waan xanuunsaday naqaska igu dhagay sakaraadaan gaaray anoo subax waxa kamida anoo sanka dhiig ka wado yaa la igu yimid qolka sidii caadiga ahayd subaxii intii la furo iyo banaanka la isaareeyay in la waa xanuunsanaa intaas isxaan igu fulan in 10 daqiiqo banaanka joogo marka subaxii waxay u imaadeen aniga oo meesha jiifa oo tabcaan oo sanka dhiig ka wada dhiig ay sheegayeen dhiig karkii wixii dhakhtarku uga digay iyo neerfiyo ay kala xirmay iyo stress iyo jirdilka la ii geystay oo biyaha la iga wixii isku darsamay marka waxa dhacday really marqaarkood markaan soo xasuusto hadaan joogo wallahi habeenkan oo jiifan iska ilmeeya reerkaygan ilaa hadda maan uga sheekeen waa markii koowaad Soomaali waxaan rabaa inaan u bandhigo waxa ay soo maray iyo dadku waxaan lagu sameeyay malaayiin qof oo Soomaali lagu sameeyay kaliya lagu sameeyay marka waxa dhacday isbitaal la geeyay isbitaal yaa la geeyay isbitaalka dhakhtarku wuxuu yiri ninkan kuma jiro taliskii loo gudbiyay waxa leeyahay ninka xaaladiisu waa adkaatay baaristii waa la baaray lacag baa la quuray in la bixiyo taliyaha soo amray amiirkooda kulay ma garanayo markii hore gobolka banaadir lacag way diideen marka dambe waa loo soo amray waa la baaray lacag $100 ay ugu baxday dhakhtarku wuxuu u sheegay in xataa wadnaha garaacayga dhiigga
wareega uu sameynaya dhiiggii loogu talagalay inuusan helaynin saa darteed ay timaaday daciifnimo ay timaaday dhanka wadnaha aan u baahanahay si u dhaqsiyaha badan dhakhtar oo dibadda ah wuxuu yidhi ninkan meeshan kuma hayn kartaan arrintii marka nimankan marka waxay noqotay laba mid inaan meesha ugu dhinto oo dee xabsiga dhexdiisa aan ku dhinto maalin walbana xildhibaanadii la celinayo iridda ay taagan yihiin leeyahay ninkaa ma hayno haddaan dhintana dee anigana aan sheegay godka jilcow inaan ku jiray ibraahim macalinne wararkasuu igu soo gaaray nin cabdiraxmaan la yidhahdaa maalin ii warramay yar cabdiraxmaan rey isaaq oo meesha ka shaqeeyo wuxuu igu yidhi waa la soo wac ibraahim macalin waxaa lagu yidhi hadduu ninkaa meesha ku dhinto abgaalaan u haysanaa waan ognahay meesha inuu ku xanuunsan yahay adigana meesha aad xukunto inuu ku jiro marka saa darteed ibraahim macalin wuxuu culayska saaray taliska si aniga xaaladayda caafimaad wax looga qabto waxay go'aansadeen marka in magaalada meel ka mid ah hotel in la dejiyo inta aan ka caafimaadayo xaaskaygii baa timid oo u timid inay xaaladeyda baarto ay aniga ii doodo waa iska soo baxday cunug yaray wadataa oo 3 bilooda kiiba marka ama carabkii ka war helay hooyadaybu wacay ka waran xaalad markaas waxay ku tiri xaaskiisii baad soo baxayo waxay rabtaa wasiir Omar xaaskayga waa cawliyahan wasiir Omarna waa cawliyahan xaaskayga waxay tiri haddii dadkiisi kale ninkan wax u qaban waayeen anaa wasiirka lugahayga ugu tagayo waan soo baryaa si wiilkan haloo soo badbaado xaaskaygiiba adigu soo baxday ayadoona cidna amar ka qaadanin kii marka reerkayga wici jiray waa loo sheegay xaaskayga inay imaanayso wuxuu yidhi marka xogta aad raadinaysaan ninkan haddaad xaaskiisa qabataan wax walba uu ogolaanayaa ilaahay amarkii xaaskayga ninka dumaashigay macnaha walaasheed ninka qabo yaa nabasuuda ka tirsanaa gurigiisay kusoo degtay waa la weeraray gurigii baa la weeraray xaaskayga in la soo qabto yaa la isku dayay ninkii baa lagu arkay marka gurigaa soo jooga oo tan nabasuuda ahaa waa la isqabsiyaa in soo amray nimankii weerarkaas geystay dibay u baxeen adigu markii muddo la isqabsaday oo la yiri maxaa jiray waxa la gabadh inaan wareysanaa rabnaa xaaskayga waa loo yeeray taliska loo yeeray waa la wareystay waxaa la yiri ninkan iyo ku xirnaa isaan weeyaan ee wax baa la wareystay maxaad ka haysaa wax taleefannadiisi kale maxaad ka haysaa wax guriga u yaalla ma jira gabadhu waxay tiri ninkan waxaan u imaaday in ninkan wax dambi ma laha ninkayga in la ii soo daayo aniga inaad xirataan oo isoo wareysataan oo isoo weerartaan maana u imaaneen saa darteed marka waxay ku dhaheen kulamo kula siineen oo u diideen haddaa rabta ninka inaan kula kalon siino waxa weeyaan xogta aan rabno waxa weeye inaad na siiso weeye gabadhi marka dee waxay tiri anuu xog rasmiyo ninkan aan ka hayo ma jirto marka wasiirka u tagtay waxay ku tiri waa la afduubay guriga la igu yimid wasiirkii arrinta u sheegtay wasiirkii baa madaxweynaha u tagay 2 jeerna wuxuu yimid taliska nabad sugidda waa loo diiday inuu wasiir Omar gudaha soo galo ninkan ma haynaa lagu yiri madaxweynuhu u tagay wuxuu ku yiri madaxweyne soo ii sheegay markii la soo daayay wasiirku madaxweyne aniga waxaan kuumada waxaan matalaa buu yiri dad la yiraahdo kuumade meeshana u fadhiya maanta in kuumadihii lagu dulmiyo magaalada aan joogay wiil uu 2 bilood meel iskaga xirnaado oo waliba naf iyo geeri nolol u dhaxeeyo waxa weeye mid aan aqbalayna ma aha laba mid samee waxa weeye ninkaas si u raqsiga badan waa in meesha lagu soo daayaa si dadkayga aan u qanciyo marka madaxweynuhu iska dhigay waxaan wax ogeyn wuxuu ku yiri anu ma ogay arrinta looga sheekay wasiirka waxa la yiri marka ha u tagay halo fasaxo wasiir Omar sidii uu meesha igu yimid oo soo salaamay runtii uu iska ilmeeyay waxaan ahaa aniga markaasi meesha markaan galayay aniga nin quman oo nool oo sida hadda aan dadweynaha ii daawanayaan muuqaalka iga muuqda camal aan ahaa wallahi maalintan ka soo baxayay 38 kiilaan ahaa macnaha meeshaasi tacadiga la ii geysanayay waxa iiga darnaa macnaha aniga waa la ii xirayay mar walba anoo godka jilacow meesha u xumaa ku sii jira baa haddana la ila dhaqmay sida ma aragtay qof shisheeye oo ma aragtay oo dalkiisa aanan joogin waay wasiirku muxuu kala kulmay markuu wasiirkii markuu arkay hadal kale ma dhihin laana qof la hadli kara ma ahaynba qof xaalad adag ku jiraan ahaa wasiirkii markuu ilmeeyay wallahi madaxu iga taabtay wuxuu igu yiri waan ka xumahay aniga xaaladan riili ma ogeyn in badanna meesha aan soo istaagay waa la ii diiday waxaan ballan kaa qaadayaa inaadan ku sii dulmanaan doonin meesha aad ku jirto wasiirka waxaan ku yiri nimankan aniga shaqan awal buu soo raadsaday shaqadii hadday shaqo ayaga rabaan inay xoog iigu qasbadaan ay rabaan oon diiday ilaa haddana iigu qasbayeen haddana ay leeyihiin dembi aan lahayn qiro haddana say u wadeen ay leeyihiin qof dembi dusha ka saar yaa haddana waxaan ku yiri soo nimankan lacag ma jirin aniga ayagana dhex martay lacagtoodii dadweynaha Soomaaliyeed yaan u dhaxeeyaa lacagtoodii waa la siini naftayda ha ii daayaan iska baxo faraha ay qaadaan haddii kala maxkamad
wasiirkaygaa tahay aan cadaaladaan rabaa maxkamadda saaka ha la igeeyo nimanka aan u xiranahay soo maxkamad markii la igeeyo ninkan waxaa leeyahay u dacweysan yahay qof aan u dacweysanahay maba jiraba ilaa oobiga ma ku qorni wasiir marka meeshan ani afduub baan ku joogaa baan ku yiri nimankan awal way idil lahayeen laakiin waxay go'aansadeen maadaama fashilmeen in la cadaabo meeshan aan ku jiro wasiirku iska ilmeeyay xaaladeedana uu arkay qofkii marka saa ay arkaa ay qiimeyn karay wasiirkii marka wuxuu madaxweynuhu ku noqday wuxuu ku yiri ninkan waan soo arkay laakiin de xaaladiisu ninka waa adag tahay waxaan codsanayaa ninkaas taliskana masuulna la hadashid in maaragtay isbitaal horta bal aan geyno aan daaweyno waxaa way subaxii la ii yimid isla ninkii reerkayga intuu la hadlo nimanka nabasuuda u sheekeynayay iyo mid kale yaa la ii soo diray waxaa la yidhi idinka isku sawira damiinka noqda ninkii waxaa la rabaa waxaa la iga dhigay inuu saaxiibka yahay uuna hooyadiisa u sheegayay ninkaan ku daba jirnaa oo waan wadnaa inay dhab laga dhigo inta uu ila joogane inuu dhooniyo nimankan way ku dhibaateeyeen waxay rabaan iskaga yeel macnaha nin maskaxdeeda loogu talagalay inuu ku ciyaaro ninkii marka raggi waa igu soo sawireen waa la igu soo sawiray waa la isoo fasaxay boorsadeedii la ima soo siinin ayaa low kombiyuutarkeedii la ima soo siinin moobiladii la ima soo siinin kabaandhahaygii la ima soo siinin baasboorkaygii la ima soo siinin dukumentiye aan lahaa la ima soo siinin daaweyn aan isticmaalay la ima soo siinin sidaada ku baxaa la yidhi halkaa waxaa daliil kugu ah nimankan inaysan weli fasaxin waan soo baxay hoteelaan degay waxaa la yidhi hotel lacagtii xataa la iga qaaday 9 kun ahayd la ima soo siinin waxaa weeyaan hotel waxaan iska soo degay dayax waa la ii gurmaday dad baa ii gurmaday ehelka qaraabada lacag baa la ii soo diray daligi dibad hotelkii baan lacag iskaga bixiyay dhakhtar baan aaday waa la ii daaweynaan bilaabay waxaan bilaabay inaan soo yara noqdo subaxdii dambe yaa waxaa dhacday midkii labadii kamid oo aniga la igu sawiray oo ayagaba i xiray oo informationkeena reerkayga intee wacan mar walba wixii aan reerkayga dhahaba ayaga xag ka keenayay yaa mid kamida labadoodii baan kala shukaansaday mid baan waxaan ku niyo gaari baan ku siinayaa zakariya la yiraahdaa waa yar waa sunuura gaari dhooble ku yaalaan ku siinayaan kugu dhiibaa markaas wuxuu walaa khayr markaas waxaan idin nin meeshan culays buu isaarayaa oo axmed carab la yiraahdo wuxuu leeyahay ku uriyay ninkaas iska ilaali zakariya hadii waxa aan adi iska ka ilaalinahay ma aqaano adaana ii dhow markaas wuxuu run ma ku sheegaa ninkii ku xiray waa ninkaas ninkii reerkaaga la xiriirayna waa ninkaas cod buu ii soo bixiyay codkan dhageysu ii yiri wuxuu leeyahay ninkaas hadaa soo daysaan ana khataraan geli ku haya meesha islaantiisana hal xiro oo hal xiro islaantiisa yaysan noqonin meesha ku haya ninkaasi iska haya cid dambe oo ka soo idin kala soo xiriiraysan yaysan jirin sidoo kale wuxuu leeyahay ninkaas weli lacagtii uu haystaa lacagta laga soo saaro ayaa loo way dhacan lahayd haddii labada bilood meesha la igu cadaabay hal maalin lacag la ii weydiiyo oo la dhaho lacagtii aaway way dhacnaan lahayd macnaha aniga Cabdullaahi waa iska bixin lahayd wax lagu haysta garan lahayd wax la igu haystaba waan garan waayeba macnaha cadaadis markii hore nala shaqay marka adigu al-umum sidii markan ku soo baxay wasiirka qaday ii sameeyay wasiirka wuxuu yiri nimankan alaabta dokumentiga anaa kaaga soo qaaday alaabtaada hotel soo deganid anaa bixin doona hotelkaas iska degano waayaan ku iri markaan 15 bari deganahay iyaan dhalinyaro meesha ka dhex shaqeynaysaan maalin meesha ugu yeeray in ku shaqeysan hotel dayax waxay u dhaheen shirki khamiis laha oo laga hadlay amniga khamiis walba waa la hadlaa oo gobolka Banaadir waxaa la yiri kii maxbuuska ahaa waa in sabtida lagu soo celiyaa godka jilco sabab markaasaan ku yiri maxaa jira wuxuu yiri niyahownay cid kalena waxa la wadaagin waxay go'aansadeen inay meeshaas dib dambe aan lagala soo hadlin godka jilcood ku jirtid ama inaad ku dhimato ama inaad halkaas forever iskaga jirtid yaa kugu dhahay marka waa rag meesha ka shaqeynaya meesha kamid ah ani marka waxaan bilaabay inaan kala laaluusho lacag baa ii timid oo mid aan qaraabanaha ii soo diray kan 500 si kan wax si waraysiyan galay marka waxaan arkay inaan khatar aan ku jiro marka dusha ka ilaalinaya mar walba dusha iga ilaalinayaan marka waxay dokumentigeena waa haystaan oo de shabaab ma dhex mari kari anoo dhulka ma mari kari oo kismaayo ma aadi kari oo way ogyihiin shabaab aragti baa naga dhaxayso oo de way marka hore birta isaarayaan waxay dhaheen Kenya ma aadi karo dokumentigii baad ka haysataan
ninka marka culays macnaha dhanka dabagal zaa'ida maysan igu sii samaynin nin xanuunsan oo dee tabcaanna way arkeen oo meesha jooga ilaahay amarkiis subaxdii anoo waan tukaday waan weysaystay ilaahay markaad u dhawaato ilaahay barida faradu kuu furaa anoo ilaahay intaan gacmaha u taagay buu ilaahay wuxuu farad ii furay Omar baa hadlay wuxuu yiri saacadan laga bilaabo diyaaradihii localka waan furnay dhobley diyaaradihii way u duuli karaan kismaayo way u duuli karaan laakiin diyaaradaha wadamada dariska aad waa inay muqdisho soo maraan laakiin localkii waan furnay awal dhobley waa loo diidanaa diyaaradda inay aado afmadu waa la diidanaa goboladaas waan farxay dhalinyaro saraakiilaan u yeeray oo godka jilc uga shaqeynaysay waxaan ku iri niyow dee in la fasaxay waad ogtihiin inaan baxaan rabaa airportka inaan mara ma rabo airportka inaan mara ma rabo diyaaradda beri baxaysa ugu horeysana inaan ka hara ma rabo lacag 10 kunna waata saad ku qaybsanaysaan idinka idin taallaa laakiin anigu waxaan idinka rabaa meeshan inaad iga saartaan dhalinyaradii ku ilaalinaysa waay sawa wadan lacag ku shaqeeyaba ha markaas waxay dhaheen sharciyadaadii iyo waxa sharci iska dhaafan ku idinka sharci iyo baasboor waxa iska dhaaf anigu xanuunsanahay daryeelan u baahanahay daryeelkii meesha kama helayo marka nimayo garab isiiya bas waayahay gaari baa lagu qaaday daf meesha UN ta laga soo galiyay airportka dhanka UN oo dadka VIP ay ka galaan waay sawooddas baleeyay waa leeyihiin ciidan niman saraakiil oo aan kaarar wata kaararkii nabad sugidda rag u khatarsanaa oo taliskii ka shaqeeyay weeye awoodda way leeyihiin waay meeshii aan tagay waa labisanahay ayagoo kale geesay iga fadhiyaan macnaha dhar caadi aan qabaa kaararkoodan bay dhiibayaan sax baa leeyahay meeshii aan tagay lacagtoodii labadoodii baa kala qaybsaday diyaaraddii oo kacayso hataa la ima soo marnin gudaha boolibas wax la ima soo marnin diyaaraddii waa la soo saaray hadday ogaan lahaayeen inaan le'an haddaan airportka dhex geli lahaa waa la arki lahaa airportka ka shaqeeyaan tan kale meesha xafiisay ku leeyihiin waa la arki lahaa boorsadeedii waan ka tagay meeshaan deganaa hotelkan uga tagay xaaskayga waan iska soo hormariyay 2 maalin ka hor anigii marka dharkii aan qaba bisan ku soo baxay boorsadeedii bil kadib yaa qof muqdisho ka soo baxaan u soo dhiibay loo soo dhiibay lagu yiraahdo laga dabageeyo dhobley markaan imid isla subaxii dhobley aan imid galabteedii markan waxaan u soo gudbay Kenya waxaan raadsaday sharcigeeyay in marka waxaan ka gudbay markaan ka soo degay airportka waxa ka war helay ninkii waxa ka war helay waxa layfan galay anoo airportka dhex taagan waxaan iri waan soo galay ilaahay dhobley deegaankayga uu nabad keenay xaqiiqda jirta iyo wax jiro dhan gurigayga markaan tago ayaan ka hadlayaa waxaa markiiba soo wacay wasiir Omar wuxuu yiri waan ku soo daayay nimankan haddana inaad baxaan warka ma haynin runtii inaad baxdana dee waan ku faraxsanahay sababtoo ah khataraad ku jirtay laakiin waxaan kaa codsanayaa inaadan hadlin markiiba kuwii fahdiya soo saaray umarina ayay la soo saaray waay Cabdiraxmaankii baa qaylinay wali wuxuu yiri Cabdiraxmaankii oo qaylinay ay soo wacay oo saalay marka nimankan qorshe ila damacsanay ilaahay baa fashiliyay waayaan ku ri waxaan xurmeeyay ninka isoo daayay meesha igu yimid ila sababta ku soo baxay asaa iska lahaa sababta ku soo baxay waay go'aan waxaan gaar inaan ka hadlin dad badan marka yiri ma hadashii dunyaha ama maamulka ka tirsanaadaan ama dad shacaba ma qeexdii waxaan barnaamijka jira waxaan ku ri waqtigeeda la gaaro saas runtii markaan barnaamijkaaga arkay aan arkay qaabka wax u socdaan iyo maartay dadku say wax u soo fahmayaan iyo in la fahmay systemkan hadda jiro inuu khatar ku yahay jiritaanka dawladnimo jiritaanka shacab jiritaanka nolosha bini'aadamka dalka ku nool ay dadkii wada fahmeen 90% yaa waxaan go'aansaday anigana inta aan hayo inay muhiim u tahay intii ka dhinaydo aan ku daro anigana aan ku darsado waay Cabdullaahi waa maasan tahay markaad ka soo tagtay marka koleyba Kenya timid wax khatar amni ma dareentay marka nimankii ma kula soo xiriireen dhowr jeer ay la soo xiriireen oo igu dhaheen niyahow waan ku fasaxnay sharcigaagii soo doono lacag akoon igu jirtay ay xanibeen oo macnaha sharciyadii ay iga xanibeen sharciyadii aan haystay ay ku xanibeen waxay u dhaheen lacagtaadina waan kuu fasaxaynaa sidoo kale waxaa jirtay dokumentiyo dhul ani aan lahaa oo si lagu helay adag tahay
ay ayagan gacanta ku hayaan oo weliba dhul aad muhiim igu ahaa waxay igu xujeen inaan tago ayaan loo marka dad baan u diray xamse uu ka mid yahay xamsahan hadda xildhibaanka ah oo ehelkayga ah waxba way ka qaban waayeen say ku heleen dukumentida marka dukumentidii boorsadeeday ku jireen markii la xirayay totaliba markii la xirayay dukumentidii boorsadeeday ku jireen waayo marka dadaan u dirin mala axmedow xataa shirarkii muqdisho uu tagay waan la hadlay axmedow xiriir baan u sameeyay axmedow waan la kulmay nairobidan wax walbaan u sheegay marka waxaan ku werinay dad nimankan la heshiisaan dukumentiga iyo sharciyada laga soo qaado haddiina la heshiinna dee anu hadda rajo saas ka mari laakiin hantidaydii iyo wax walba on lahaa gacantay ku hayaan sharci waa la helayo dee waan helay dib baan u samaystay sharciyadeedo de replacement wax leedaan ku sameeyey boolis nidaamkii sharciga ahaan maray waxaan ku yiri sharciyada inay si khaldan u isticmaalaanna waa laga yaabaa oo in sharci baasbooran laa qof iyaga intay helaan in si khaldan sharciyada loo isticmaalo hantidaydii lacag iyo dukumentiyadii guryaha igu qaalisanaa dhanna gacantay ku hayaan marka waxay ilaa iyo 2 bilood waxay isku dayeen inay dukumentiyada dartood ay igu soo celiyaan laakiin dee waxaan maraan ogaa waxa weeyaan lacag iyo dukumenti ay gacanta ku hayaan macna ii keeni mayso ilaa rajo nimanka kama lihi aaminaad dambe iyo kalsooni dambe ma jirto dadka dhibaatada meesha godka jirco lagu hayane waxa way qof islaam wuxuu fiirsan kara ma aha maxaad ku aragtay dadkii kale aad kula xirnaa intii aad ku jirtay maxaadna la wadaagi kartaa meesha horta waxaan ku arkay horta meesha dad badan oo dad muslimiin oo ku dhibaataysan baa jira sidoo waxyaalahan ku arkay waxaa ka mid ah ayaan low waxaa jira odayaal waad garanaysaa beri dowladdii hore oo soo xuli jiray ay shabaab u yeeri jireen oo dhihi jireen waa inaad degdeg ku imaataan si shahaada la idinku qabto odayaashii ay shabaab ku qasbeen inay shabaab u tagaan soo ma jirin odayaashii markay shabaab u tageen dee amnigoodana lama waardiyeyn karo dowladda ma waardiyeynayso lamana kafaalo qaadayo waxay odayaashaas maaragtay wix damaanadooda amni ahaan saa darteed odayaashii amarkii waxay raaceen nimankii shabaab ahaa waxay ugu tageen meeshii lagu ballamiyey odayaashii dhammaan odayaashii waa kii lagu yidhi waa shahaada la idiin qabtay hadda kadib barnaamijkaas hagelina markay soo noqdeen odayaal sodomeeye ah oo qol ku xiran yaan arkay waan wareystay marka odayaashii waxaa lagu yidhi nala shaqeeya haddaad nala shaqeysaan waa idin sii deynaynaa haddii kale dee niman shabaab garab siiyaad tihiin haddii xog waxaad maraysaan ciqaabteedaad maraysaan odayaashii soddon ay ahaayeen kolba ninkii aqbalo waa la sii deyni wada shaqeynta kolba ninkii aqbalo waa la sii deyni waxaa loo kala dirayaa marka oday waxaa lagu xujeynayaa noloshiisa in deegaano shabaab dhalinyartii waa la wada fahmay odayaasha in deegaanada shabaabka loo diro oo nafsadooda khatar la geliyo oo odayaasha la rabay amnigooda in la sugo oo ilmahoodii intii la soo laayay ama shabaabnimaha lagu soo laayo ama dembi aan lahayn dusha laga saar intii la soo laayay baadana odayaashii loo soo dhigtay waxaan kaloon meesha ku arkay niman aan dembi lahayn nin waxaan arkay ilaahaan kugu dhaarshay nin waxaan arkay nin ciidana yuu gabadhiisi yuu qaadqaadi jiray tagsiilo weeye xaaskiisu u qaadqaadi jiray ninkii ciidankaa uga shakiyey markuu uga anigu asaa ii warramay markuu uga shakiyey lagama hadlinine ninkii waa la soo qabtay bambaa gacanta loo geliyey waxaa la keenay godka jilcow bambaan kusoo qabanaa la yidhi godka jilcow ku jira 9 bilood 9 month ku jira uu iska ilmeynaya ilintiisaa saa u dhammaatay habeen imaan uu ilmeynayaa waxaa weye ilmahayga ma islaanteydii waa laga reerkoodii markaan dembigii dusha laga saaray islaanteydii wuxuu yidhi waa laga furay reerkoodii way fasaqeen nin kale hadda u dhaxdaa hal maalina ii timid waxay tiri walaalow iga raali noqo waa la i furay nin kale u dhaxdaa ilmahayga awowgay aabbahay u dhintay awowgay oo waayeel oo indhala-aana yaa hayuu yidhi macnaha ahayo meesha ku haya waxna ma helo odaygaas intaa kuwaas ma jirto anaa gaari ugu shaqayn jiru yidhi anna intaan ku xiranahay dad nin bas gabar un 2 maalin aan qaaday oo la iiga shakiyey macnaha ciidanka ciidan nidaam ma jiro nin walba danihiisa khaaska ah ama ciduu rabo ka cadgosanaya ciduu rabana uu sameyn karaa waxa inta badan waxa sameynaya waa nimanka shabaabka iska soo dhiibay 2 nin oo 2 ciidan meesha lagu soo xiray oo la ciqaabayay oo dambi intay galeen wiilash waan sheekaysanay maxaa idinku soo ciqaabay midaa iska oynay wuxuu yidhi aniga weligay shabaab ma noqonin buu yidhi jaamacadan ka baxay buu yidhi niisaan qortay taliyaha ay xukumo wuxuu iska soo dhiibay buu raggii shabaabka iska soo dhiibay weeye ninkii shabaabka iska soo dhiibay la aaminsan yahay buu taliyihii haddaan amarkiisa qaadan waayo waxa weeyaan wuxuu ii jarayaa 7 beri oo ciqaab ah
bartanaan kusoo xiranahay buu yidhi ninkaasi dembiyada uu geysanaya laa cadoo laa xisaaba ninkii shalay ninka dilay ninbaa niman xamar weynaa dad lagu qarxiyey nimankii oo dhiiglaa la keenay meesha waa la sii daayay subaxi nin baan weydiiyey maxaa nimanka maxaa loo sii daayay waxay ogolaadeen wada shaqayn dembi walbow qofkan ninkan galo waniyaho waan ku badbaadinaynaa meeqaa dhimatay 10 qof oo shacab ma dhimatay waan helaynaa dad dembiga loo sahro annaga laakiin nala shaqee waxaan rabnaa shabaabkaaga iskaga noqo waxaan u baahannahay oo ama xog ah ama mar walba na soo sii wakukaas godka jilcow dadka la keeno wada shaqeyn inta badan lagu sii daayaa dembi walbow gala qofkaas dad badan oo mas-uuliyiin ah ganacsato ah yaa meesha la keeno lagu dhibaateeyey oo waxyaalo badan meesha aan marka ganacsatadaas maxay sameeyeen ganacsatadaas waxay diideen lacaga inay xawlaan nin baan waraystay wuxuu yiri niman baa ii yimid naba sugida waxay u dhaheen ganacsi Dubai u dirsataa ganacsi meeqaad dirsataa ka soo qaad 400 kun 500 kun ganacsi u dirsaabay nin xogaha dhaqaale ka muuqdo ahaa ninku waxaa la yiri lacagta Dubai laga siinayaa lacagta aad dirsanayso Dubai laga siinayaa niman baa ku imaanaya lacagtaasi niman baa ii yimid lacagtii baan siiyay nimankii markaan lacagta siiyay anigu waxaan u arkaa ciidanka inaan garab siinayaba lacagtii xagga laga siiyay buu Dubai ilaa lacagtu waan akoon baan ku transfer gareyn lahaa ama xawaalad aan ku diri lahaa si la iigu soo adeego lacagtii laakiin xawaalada iga baaqanaysa xawaaladu iga baaqatay lacagtii marka xagga yaa waliigu wareejiyay qof anigana tii cash ka hidman baan ku soo diray waxa la yiri nimankaasi nimankii baan siiyay buu yiri subaxiina guriga ciidana ii yimid waa la isoo katiinaday waa la isoo xiray buu yiri ninkii shalay ii yimid yiri arintan noo qabo u qabo ciidanka ma indha ma saarin buu ma arkin nimankii soo qabtana dambiga lagu haysto waa dambigii ninkii shalay iga codsaday ninkii haddaan sheeganay maba jira la yiri nin wax magaca la yiraahdo sawir ma ka haysaa maya man ciidana sawir karaa buu yiri soo ku amri laakiin isagu isla ayagii baa ii yimid buu yiri marka guriga ayagoo gaari watay ii imaadeen buu meesha gaariga igu qaadeen gaariga ciidankay wateen buu gaariga igu qaadeen guriga ay geeyeen arintii way ii soo sheegeen aniga marka xogaa cabsina dadka way jirtaa sidii buu ku aaminay dad xiran oo aan ku jirin diiwaanka xabsiga sidoo kale ma aragtay waan arkay ugu yaraan 3 qof aan arkay waxaa ka mid ah nin u shaqaynayay magaciisu aanu ma garanayo wuxuu u shaqaynayay bangigan Salaama Bank ninkaas runtii hal maalin baan is aragnay ninkaas qolku ku xiran yahay dhiikar uu qabaa qolkaas iskaga jira magaciisa ma taqaanid ma garanayo magaciisa nin laakiin gar yara cadcad leh ninka aad loo dhibaateeyay sidoo kale waa OB ma galo ninkaasi macnaha wuxuu diiday in lacag uu xawilayo lacag Salaama Bangi oo qaab khaldan ku socota iyo su'aalo ka keen uu diiday kadibna sidii baa lagu soo xiray kadibna dambiga oo dhan dusha yaa asaga laga saaray waxooda hadaad wuxuu igu yiri waxooda hadii aad u qaban weydo wixii ay kulahaayeen qabo oo dambiga dusha laga saaray marka adigii baa nimanka shaabka u shaqeynayay waxaan kama arkin in Soomaaliya Somaliland oo cigaal la yiraahdo cigaal oo u shaqeynaya UN hadda asagoo dhar la'aana yaa laga dajiyay Somaliland cigaal waa wareysan doontaa waa raadi meeshan ku arkay nin cad weeye nimankan wuxuu shaqeynaya Mareykanka asagii staafkiisi waa la weeraray guriga lagu tagay waa la soo xiray cigaal looma sheegin wax loo soo xiray staafkiisi qoryaha laga qaaday waxa la yiri magaaladiina kala gala cigaal sidoo kale yaa oobiga laguma qoreynin cid la hadlaysa ma jirin uu kadeedna kadibna waxa lagu yiri xog aad bixisay oo nimankan sirdoonka Mareykanka la shaqeysay saas jirta waxaan u baahanaa annaga inaad nala shaqeysid nimankan faraha ka qaat markaas wuxuu yiri nimankan shaqa naga dhaxaysa oo nin hay'ad u shaqeeyaan ahay saan faraha idinka qaada waxaa la yiri nimankan Mareykanka ayaa xog la wadaagtay oo ka tirsan barnaamijka NISA sadarteed waxa weeyaan laba midun George nimankan wada shaqeeyaan uu diiday wada shaqeyntii 2 bilood uu cunay kadibna intii la bahdilay oo dambi loo yeelay oo deegaankiisa lagu diray ba asoo macawus qabo intay dad xildhibaanay sanatarro u tageen yaa asoo macawus qabo oo sakaraasan yaa intii diyaarad la saaray yaa wax laga dajiyay Soomaaliland Hargeysa ninka raad cigaal la yiraahdaa nin caana weeye haddana xisbiga wuxuu ku jira dawladdan la yiraahdo Musabixi waa nin macnaha siyaasi ah haddana waxaan maqlay taliyaha nabasugidu u sharaxnaa ninkaasi wareysiga dhabta asaa ku siinay ninka qaabka loo dhaqmay
bes un nala shaqee waa la bahdilay dharkii baa laga bixiyey dabagaab besaa loo reebay qolkii aan ku jiray baa lagu xiray uu baaba'ay waxa weeyaan soomaalnimo ma jirto islaamnimo ma jirto nimankan waxay xeerinayaan totally ma jirto ma yaqaanaan wax tan kale meesha lagu hilmaamaya waxba lagu weydiinay horta bahal diin la yiraahdo meesha ma jirto haddaan maqasho hebel waa diin san wax meesha diin salaad laguma ogolaanayo waa tabti wadamada gaalada wixii aan dhihi jirnay xabsiyada gaalada waa la isku cadaadiyaa tabti godka jilco waa saas oo kale salaad waa lagu diiday waxa cunto waa lagu diidayaa ehelkaagi ma jiro nimankan reerahooda ay wada aadayaan hal nin oo ku diirnix ma jirto nin walba shaqadiisu ilaashanaya jilco waa la baabiiso tiila lahaa oo dhaqankaas meesha waa ma yaalo jilco af Soomaali ahaan buu u baaba'san yahay laakiin waxaa xukuma haddana waa xaruntii gobolka Banaadir oo nabad sugidda waxaa xukuma Fahad Yaasiin cida qarsoonida ah wasiir hadduu imaado xataa ma ku soo deyn karo kuma arki karo dadka la raba in meesha in lagu qarsado ama lagu dilo unba meesha la geliyaa ninkii ibraahim macalin xagee ku dambeeyay oo ibraahim macalin habeenba waxaan ku iri intuu banaanka ii soo bixiyay buu gurigiisa cunto iga keenay wuxuu ii keenay bariis iyo oodka ay timir saaran yihiin wuxuu igu yiri niyahowni aadan ugu xumahay runtii aniga ma awoodin inaan meesha wax kaaga keeno gurigayga adigana waxaan xanuunsantahay saliidda ay dhibaysay daryeel ma jirin hal maalin cunto ii keenay waxaan ku iri ibraahim macalin oo hal erayaan ku iri ilaahay waxaa maalin dhici doonta hadda aniga adiga ilaahay baa noo dhexayaan ku iri raqiib iyo catiinta garbeygay saaran yihiin adigana sidoo kale makhraati aan ilaahay ahayn maanta ma lihin baan ku iri maalin nimankan danahoodaad u fulinaysaa waad iska indhatiraysaa wanaagga iyo reer ahludiin aad ka soo jeedaa baan ku iri sida aan ka muuqato reerihiina dadka xataa haddii qofka lasoo xiro islaamnimo xataa inaad fiiriso waxaa ka awood batay adoo Fahad Yaasiin raali geliyaan ku iri macnaha islaamnimada adoo fiirinaya waxaa ka awood batay raali gelinta Fahad Yaasiin markaas waxaan iska hilmaantay xataa dad insaan ah oo muslimiin inay meeshan ku xiran yihiin meesha ay mas'uulka ka tahay ogow dadkan mas'uuliyadda adaa hayaan ku iri waxaan ku iri maalin waxaa dhici doonta anigu hadda ilaahan bariyaa 15 bari baa hal maraan quraan ka dhameeyay laba bilood meesha ku xidhnaa 4 jeer aan quraan ka dhameeyay maalin waxaa dhici doontaan ku iri dadkan wada ooynaya meesha habeen maalin adigu ku habaaray ibraahim macalino ilaahay ma dulminayo ducada habaarkoodana ilaahay uu soo daahirin doonaa maalin meesha aan ku jiray aniga meel ka xun aad geli doonto yaa dhici doontaan ku iri saad u fulinayso awaamirta ani markii la soo daay Nairobi aan imid yaan waxaan arkay kuwa xabsiga ku jiray kuwa xabsiga ilaalada ka ahaa mid kamid ah hotel aan deganahay hotel Bincan la yiraahdo ila soo degay indhaha markuu igu dhuftay inuu isku kaadiyo waxba kuma dhinnayn wuxuu isiri ninkii u gacan gashay wadanka Kenya uu joogaa oo bilaa uu ugu dhamaatay waan u yeeray gacantan qabtay meel aan fadhiisay shahan wada cabno waxaan ku iri aniga Kenya jooga kama argusanay sababtoo nin Soomaaliyeed tahay adiga ma shaqeynay ficilka ka afcaalta ashkhas ficilla ay ku waxa ka yimid ma ilaa wada dhibaataysay meeqa maana jiidaan ku iri dibka ii geysatay ma ahan wax ka imaada jirkaagu diiday laakiin de amar ka weynaa yuu ahaa haddaad qaadan weydane barta aan ku jirto umad bari soo gal lahayd ibraahim macalin iga waan wareystay wuxuu yiri ibraahim macalin shay toban bari kama dambeeynin niman qabiiladiisu la kulmay barigii abgaalkii wax la isku dhici jiray oo Fahad Yaasiin ka soo horjeeday buu si gooni u la kulmay Fahad Yaasiin shakiya la galay waxa la ninka dadka la kulmay waa ninka kicinayo muduloodka iyo waxaas kicinaya ibraahim macalin uu ka soo horjeestay intana dab uu ka wadaa oo awood buu yeeshay xogaa dhaqaalana uu sameystay Fahad Yaasiin markuu wuxuu sameeyaa qofka durbe xilka ma qaado horta qofka uu bahdilaa intuu saxiil ka qaadin qofka akoonadiisi dhaqaalihiisi lacagihiisi meel walba laga soo xiray markuu arkay inaad dhulka aad taalo iyo haddana wuxuu ku daray gaariga inuu ka qaado ciidankan inuu ka qaado intii baa lagu sameeyay asagoo la amray in la soo xiray marka bari intii lagu xukumay waliba dambi dusha laga say sameeyeen uu asaga raali ku ahaa ya waxa lagu xukumay inuu ka soo horjeestay dawladnimadii maarta wadanka jirtay asoo sargaalana uu takrifal dhaqaale sameeyay ya lagu xukumay niman qaraabadiisa oo ganacsata oo abgaala ya xijaab intay u xireen oo lacag ku bixiyeen airportka sidii Istanbul looga dajiyay kaliya waxa uu aarsaday inuu qabiilkiisa la kulmay kay wuxuu aarsaday odayaal Fahad Yaasiin ka soo horjeeday inuu si gooni ah ula kulmay
fahad yaasiin ninka u shaqeynaya waa inaad musqusha markaad gelaysa u sheegtaa oo tiraada aniga ogow musqul baan gelayaa la soco waaye cabdullaahi marka waxaasa soo martay ma filaysa waxaasoo kale in soomaaliya ka dhici karaan والله ayaan low never weligay kuma riyooneen aniga dadka aad waxaan dowladnimada u jecelaanahay dowladdan inta xasan sheekh uu soo maray sheekh shariif uu soo maray dowladda farmaajo markii la dooranayay wallahi waan ilmeeyey gurigayaan tv ka daawanayay farmaajo markii lagu dhawaaqay wallahi oo billahi ilin baa iga xamaasad macnaha isbedel inuu yimid dadkii oo dhan ani kali ma aha dee adiga naftaada maqaataadka waxaan arkay xataa dad badan oo xataa tvda ka shaqeynaya waa la wada ilmeeyey macnaha farmaajo waa la kacay ma ahee sida loo taageeray ma malaysan kartid ma filaynin laakiin waxyaalaha ka dhacaya soomaaliya xataa wadamada dariska ma dhicin ethoobiyan waxaan ku sheegaynaa dadka inay cadaabto xiniyaha ka geliso musbaar laakiin soomaaliya dowladda farmaajo kadib markay qabsatay wixii ka dhacay wadamada dariska ma dhicin wadamada dariska kama dhicin lama arkin ayaan low waxaa la ii sheegay uu nin iigu dhaartay rag la xukumay oo dil toogasho lagu xukumay oo shabaab dad waryaal dilay oo shabaab dilay yaa ka waran maraykanka jooga dadka la dilayna dad dambiye yaryara galay oo xabsiyada ku jiray baa booskooda la geliyey balka waran markhaati waa la helayaa markhaati waa la helayaa waay dadkii wax dilay dadkii wax dilay ee la xukumay dembigii ay la xukumay xukun kuma dhicin nin aan xukunsanayn oo dembi aan gelin oo iska joogo oo wax yar ku xiran baa intii la qabtay oo afka laga xiray yaa lagu bedelay yaa la toogtay tiirka la geeyey nimanka tooganaya saraakiisha kama hadli karaan dadkan lagu leeyahay waa daacad waa wadani wax ka jiro ma jiro ninkan fahad yaasiin la yidhaha istaraatiiji uu ciyaaraya waxaa weeye mas-uuliyiintii oo dhan gacan uu ku dhigay ku uu rikaato ka hayo iyo ku cabsi u geysay dadkii intaas ka wada dhigtay iyo mid dhaqaale uu ku hayo waa intaa saddexdaas uu kala qaybsaday asaga bas ma yahay farmaajaha waad aragtay ninkaa dembiga u geysay soomaalina intay wada istaagtay tan iyo diyaarad jabuuti laga celiyay wixii ka dhacay aad ogeyd farmaajaha ka waran soo taagan ninkii dembigii intii lagu qaaday nabad sugidda laga qaaday haddana isla habeenkii xil u magacaabay oo ah la taliyaha amniga waxa laga haya maxaad filanaysaa waxaan wasiirada qaarkood laga haya culayska wax ka weyn ba asaga laga hayaa ilaa nin dambiile ah oo soomaalina ay soo tuurtay oo dal iyo dibad la cabaadayo oo soomaalida wada ilmeynayso farmaajintu iska indha tiray dadkii soo doortay buu shakhsi ku dhegan yahay maslaxadii waddankan iyo maslaxadii guud ee dalka ama dad in la hormariyo arday la soo saaro jiil la soo saaro shakhsi keli yuu ka doortay marka maxaa sababta uu ku shakhsigaas jecel inta la eg macnaa nin jeclays inta la eg weli kama dhicin dowladihii Soomaaliya soo wada maray dad xil laga qaaday waan arki jiray maxaad ku tarin lahayd marka Cabdullaahi nidaamkan hay'adan waa hay'ad aan haba yaraatay wax qaanuun ku shaqeynin hay'adaha sirdoonka waxay ilaaliyaan muwaadiniinta oo ay cadawga dibadda ka ilaaliyaan hay-adaha nidaamka ku dhisan ah in loo isticmaalo dadka rayidka ah ee lagu dhibaateeyo ma ahan hay-ad u adeegaya dowladnimada maxaad ku tarin lahayd marka hay-adda nisa ficiladaad ku dhaqantay iyo waxaad ku aragtay markaad aragtay maxaad ku tarin lahayd horta aniga ka tala ahaan haddii maanta waddanka example haddii maanta waddanka xukunka ay gacanteeda ku jiri lahaa waxaan samayn lahaa nimankaasoo dhan Fahad Yaasiin dadka la shaqeeya iyo waxa ay dadkii teamku iyo wixii maaragtay systemku uu ku shaqeynaya dadka huwan oo dhan waxa weeyaan ummadda hortoodan ku wada toogan lahaa sababtoo ah dalkan waxa weeyaan dadkiisi baa la baabi'iyey aqoonyahankiisi waa la dilay nabadoonkiisi waa la dilay waxaa isku milmay cadowgii la dagaalamayay iyo ciidankii isku milmay waxa weeyaan waana dowladdan farmaajo iyo Fahad Yaasiin dowladooda bas way dowladaha kale kama dhicin system nabad sugid way soo jiri jirtay laakiin systemkan hadda annaga waa system nagu cusub system ma ahan hore loogu soo shaqeeyey waa system la rabo ma aragtay in niman team oo isku xiran inay ku sii haystaan siyaasadda ma aha marka waxa la ilaalinayo nimankan nabad sugid ma aha nimankan waa niman team isku xiran siyaasad ahaan rabo siyaasadooda inay sii jirto maxay rabaan marka shacab looma shaqeynayo haddii dadka ilaalin lahaayeen dulmiyaan oo ay dowladnimadii dadka nacsiyaan oo
dowladnimadiiba loo arko waxaad adiga hadda ka sheekaynayso kale dadku dowladnimada dadku rabaan maxay noqonaysaa dadka horta waa daaleen dowladnimo hadda cid way dadkii awal indhahay soo kala qaadeen runtii rajaa jirtay laakiin Fahad Yaasin ninka la yiraahdo Farmaajo markuu Fahad Yaasin gacanta u galiyay wax walba oo xil haddana uu joogo uusan joogin meel uu hadda hadduu xataa damcaynu maanta xil ka qaado uu Fahad Yaasin siyaasadda laga saaro uu Farmaajo go'aansado asaa fudud Fahad Yaasin ma fududa kama saari karo dadkii marka dowladnimadii way naceen waad aragteen dadkii nin walba waa niyad jabay dhalinyartii tahriibaa la wada galay la kala carar heer waxaa la gaaray in riwaayadaha lagu soo jiro waxa weeyaan Fahad Yaasin la yiraahdo gabadh markay Fahad Yaasin ma aabba guriga ma aaday ninka TikTok aan ku arkay marka nimankan dowladnimo uma jeedaan nimankan waxay rabaan niman wax inay sii aruursadaan dadkana cabsi geliyo dadka markii la cabsi gelin waa in dad badan la laayaa oo shacab ah waa in madaxdoodii la laayaa oday dhaqameedii la laayaa aqoonyahankii la laayaa doctorkii PhD-gii la laayaa si aysan u dhicin isbedel dambe qof madax soo qaado muqdishona dee shacabka la laynayo dadku waxaan leeyahay yaysan u malayn cadow bas inuu laynayo waxa laynayo waa nimanka niisa la leeyahay dadka waxa baabi'inayo waa nimanka niisa la leeyahay ninkii maanta ka soo horjeesta waxa way bari waa la dilayaa ku qoos qaata ninkii shalay ka hadlay media intuu soo istaagay muqdisho haddana waa la qarxiyay waxa lagu qarxiyay shabaab baa qarxiya leeyahay ma qarxinin waxa lagu qarxiyay muqdisho joogaa uu ka hadlay arrimuhu ka hadlay saa darteed dadka waxa loo sheegay ninka muxuu eedaystay ereyga shalay uu hadlay nin walba marka shab buu yiri cabsi baa dadka la geliyay nimankan marka waxay rabaan waxa weeyaan waxay isku xirteen Itoobiya iyo nidaam bay isku xirteen waxay rabaan inaysan waligood aysan ka gudbin meesha ay meesha ku haystaan marka dadka aanu tala guudan siin lahaa Abdullahi dad badan oo dulman dhibaatada ku dhacdaa shalayna hay'adda NISA ma ahayn hay'ad sharci ku dhisan ilaa haddana waa hay'ad dulmiga aragti laga tirsanayo adiga maxaa dawo ku ah dhibka ku gaaray markaad qiimayso hadda nin naafaha tahay nin xoog lahayd shalay yaad magdhow ka filan kartaa yaad xanuunkaaga kula qaadi kara oo maxaa dawo ku noqon kara ani horta waan hubaa shacabka Soomaaliyeed waa isku danqadaan runtii shacabka Soomaaliyeed markaad aragto qof loo gurmanayo daqiiqad markiiba la soo dhigay way ka falceliyaan waxaa noo keenay islaamnimada iyo Soomaali waan isjecelnahay aniga Soomaali markii laga soo gudbo hal qof aan islaha garab buu siin doonaa oo garab istaagi doonaa qofkiina asagana Axmedoob uu ahaa Axmedna shaki baa la geliyay shaki la geliyay yaa asagana heerka gaarsiiyay ana horta runtii anu waa la dilay runtii nin nool baan ahaa dhibaato la geystay magtaydina nin ragga idilay maaragtay dhiigay galayne waxa weeyaan Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo isku xiran way tiimka reer Muqdisho saraakiisha anu Muqdisho ma eedeynayo rag lagu shaqeynayay oo amar qaadanaya ahaayeen laakiin ragga barnaamijkayga gacanta ku hayay raggaasi ahaayeen waxa la igu dhibaateeyay inta badan waxa weeyaan qaab qabiilna ha jirto oo dadkii de qabiilnimo sababtoo rag cuqdad qaba wadankii la wareegay marka cid walba isleeyihiin waxa weeyaan dhibaatada u geysataan waxa weeyaan qabiiladii aad wax kala tabanayseen buu ka soo jeedaa waliba dadka waaweyn dhibaato badan loo geysanaya marka dawladda Argos ay noqotay aniga marka dhiigayga waa la galay magtaydana waxa weeyaan ilaahay un meel ii saari doona cadaaladna waan u baahanahay magtaydana waxa lagu leeyahay Farmaajo dawladdiisa iyo Fahad Yaasin sababtoo ah aniga ayagoo awooda inay hal maalin aan ku kala bixi karno yaa anoonan la i weydiinin waxa ay u xiranahayn aanan ogaanin yaa la i dhibaateeyay ayaan loo aniga waxa weeyaan salaad ma tukan kari hadda fadhigan ku tukadaa waxa weeyaan waan rukuucda laakiin sujuuda la rabaa lawyadan dhulka ma dhigi kari mana ataxiyaadkana ma geli kari oo lawyahan on Indian aaday wadnaha waxa weeyaan waxa la awoodiisa yar waa la iqalay oo qalin cusub baan ahay habal la iqalo dhaqaale badan igu baxay hantidii bay gacanta ku hayaan wali dokumentiyadii bay gacanta ku hayaan sharciyada gacanta ku hayaan cid maanta ku dhiiranaysa xildhibaan iska daay dadka iga soo ruuxana u dirin ma jirto oo cabashada u sheeganin oo si shakhsiyan ah waxaan go'aansaday marka maanta inaan ummadda Soomaaliyeed soo hor fadhiisto dhibka aan i gaaray dad badan oo Soomaaliyeedna u gaaray cadaaladuna qof walba uu rabaa cadaalad dad baa dadkoodii la laayay anu dawladnimada dadkayga way ku baabeen tan iyo dawladii Maxamed Said Barre wixii ka horeeyay aabayaashii saraakiil bay ahaan jireen saban ay ku dhinteen dhamaantooda waxaan mudnaa maanta in dawladdu sharaf aan ka lahaan lahaa agtooda nin wadankii dadka u soo dhintay inaan ahaa
ma mudneen in la ila dhaqmo sida maaragtay xataa qof maaragtay loolama dhaqmo shisheeye si la ila dhaqmay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan bandhigi lahaa in maaragtay ay isku xirnaadaan nidaamkan hadda jirane in hal meel laga wada istaago ila dhibkaani bari ugu dhacay hebel uu ku dhicay dad buu ku soo dhacay marka saysan waxa u soconin in maaragtay dowlad cusub iyo nidaam cusub in la raadiyo si lagu heli lahaa falkeeda la galo oon dadka aysan dhicin mar kale in la siro oo maamul goboleedyadii nabadda ahaa wixii ka dhacay waad ogeyd inuu qof walba maanta deegaankiisa nabad ahaado intii lagu soo duulay la burburiyo dowladdana ugu horreysay dadka markan waxaan dhihi lahaa si aan dowladdan isku dhaafinna iyo tiimkan wax walba waan u soo cadowga maanta hal cadow baa Soomaaliya ka jira shabaab maaha maanta cadowga ka jira maanta waa dowladda farmaajo iyo tiimka Fahad Yaasiin shabaab waxay noo fadhiyaan waxay noo fadhiyaan bay noo fadhiyaan bay noo fadhiyaan sababtoo ah waa cadow meel aan ku ognahay waxba naga dhaxayso laakiin kana maamulaya oo haddana ku dilaya yaa ka daran marka dadku waxaan dhihi lahaa runtii inta propagandada qof dhiiggiisa adoonan waxba ka ogeynin qof dambi intii laga galay aad maanta Facebook ku soo qorto tiraado hebel waxa waa khaa'in dowladnimadu ka soo horjeeda waxaad dulminaysaa qofkaas qoraalkan aad soo qortay adiga dulmi baad ku dhacday sababtoo ah ma ogid meeshan waxa ka socda dambiye badan si lagu galaa jirta ma santa Cabdullaahi inaan la wadaagtid maaragtay macluumaadkaas ugu dambeyn ma rajaynaysaa in hay'ad dambe oo nisa la yiraahdo oo dadka lagu dhibaateeyo Soomaalida ah inay ugu dambayso middan farmaajo hadda haysto aniga waxa weeyaan waxaan qabaa horta ma rajaynayo waxaan aaminsanahay dowlad cusub ay timaado waa lagu qusqaatay wixii farmaajo ka dhacay dowlad cusub ay timaado nidaamkan in wax laga bedelo hay'adan sirdoonka totally in la baabi'iyo sirdoonku shaqadooda waa la yaqaanay wallaan ka tirsan CID ahaan jirtay sirdoon military ah oo awood power inta la eg leh ma jiro hubi ciidan ay wataan hubi ciidan ma jiro Soomaaliya waxa lagu arkay sirdoon wala bisan oo tuuta qaba oo markaa weydiisana ku leeyahay BS tan ka tirsanahay never adduunka ma dhicin waxaana la yaaban caalamkana la yaaban sababtoo ah adduunku laba ciidan u buu leeyahay waa police iyo military waxa soo raaco waa un shaqaale iyo dharcad weeye waxa soo raaco waa shaqaale dharcad waliba nabad sugidda markii nabad sugidda la dhihi jiray nabad sugidda xataa looma ogolaan jirin baskoolad inay qaataan nabad sugiddu waa ninka shacabka ku jira inta badanna waxaa laga soo qori jiray bulshada rayidka si ay waddanka xogtiisa loo helo marka team arinta wixii operation waxaa la wadaagi jiray booliska hadday wax ka qaban karaan waxay u gudbin jireen militariga ma jiri jirin marka nabad sugid waxaa hadda jirta ayagii baa sirdoon isku ah ayagii operationkii ah ayagii baa intaasoo laamo leeyihiin laamaha hadda hal mid oon hilmaamaa jirtay oon rabay inaan ku darsado Fahad Yaasiin laba tiim uu la kala baxay tiim waa operationka dastuurka ku dhisan bay u fuliyaan oo shabaab bay la dagaalamaan tiim waxaa jira qarsoon tiimkaasoo loogu talagalay dadka in lagu caburiyo dadka lagu laayo tiimkaas naftigooda si kala qaybsamaya hadday si kala qaybsamaan maanta ka soo qaad ninba waxa loo diray ninka nabadoonka soo dilay la yiri lacag lagu siinayaa gaari lacag baa la siiyay 5,000 farta laga saaray waa tiimka waxa ka tirsantaa la yiri arrimaha khaaska u fuliya culeysadana fudaydiya maartay nabad sugidda nin baa loo diray waxa la ninkaas wuxuu la shaqeeyaa shabaab already ninka loo sheegay waa ciidan ninka uu orday baf soo dilay asagii asar ma gaaray asagina waa la dilayaa haddaan la dilin uu badbaadane dambi baa loo yeelayo waxaa lagu xiray ninkaas uu dilay cid ka hadli kartana ma jirto marka ciidankiiba haddii ayaga naftigoodii dhibaatadaas bay ku wajahan tahay inay aaminaan ama maqo Fahad Yaasiin maxay u aaminayaan sababtoo ninka intuu u dirsado inuu soo laayo ayagiina dilayo haddii kana dambi dusha ka saarayo inay si aaminaan macna ma keenayso marka waxaan ilaa dadka runtii hay'ad nabad sugid la yiraahdo dambe dowladda dambe waxaan kula talinayaa nabad sugidda qaranka in halka lagu burburiyo oo la dhiso nidaamkii lagu yaqaanay nabad sugidda aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Axmed Nuur ayuu ahaa oo barnaamijka marti noogu ahaa intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabad gala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdullaahi aad u mahadsan tahay shukran thank you si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid